اللي يلي يلا يلا يفصلوا وفراقي ليعي وقاسوا بالعني بالشر وبالخير اللي يلي يلا يلا يفصلوا وفراقي jubbada sare waxaa la isku yidhaahdaa baay bakool iyo gedo jubbada sare ayaa la yidhaahdaa way dhulka fiiri dhalinyarada maanta godob baa laga galay xagga aqoonti xagga waxbarashada godob baa laga galay anigu runtaan idin sheegaya godob baa ladinka galay waa dugsiyadii hoose dugsiyadii dhexe dugsiyadii sare xataa jaamacadaha wax aqoon oo dalka ku saabsan oo ladiin baray ma jirto godob baa ladinka galay kolkaa hala baraarugo wasaaradda waxbarashadana ha baraarugto arrinkan wasaaradda haddii ay damqayso wasaaradda ayay taabanaysaa wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ayaa la yidhi barbaarintii maba jirtaba iminka macaa dowladihii kumeelgaarka ahaa wax barbaarin la yidhaahdo cid soo hadal qaada male waayo jugraafigii dalka lama baro taariikhdii dalka lama baro xitaa iska daa caafimaadka cudurada dalkeena iyo aanu laga helin oo aana imaan karin iyo cudurada dalkeena u badan cimiladiisa u badan lama baro caafimaad baa soo bartay uu leeyahay cimiladii oo yurub ama cimiladii carabta wax ku saabsan ayaa la baraa cudurada yaalla ayaa la baraa cudurada dalkeena waxba kama yaqaan tada waxyaalo badan baa jira oo godob badan laga galo dhalinyaradan marka wasaaradda ayaan ku boorinayaa dad aqoon-yahana iminka weliba waxaan ku faraxsanahay haatan waa xilligii ugu dhoweyd in la badbaadiyo waaxdii barbaarinta la soo celiyo waayo qofka runta in laga sheega ayaa wanaagsan wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya maanta nin aqoon leh baa haya waxbarashadana aqoon u leh isma garanayno runtii ebidkeyna ma hortegin kuwii kalena waa qaarkooda ma aqiinayba oo maaragtay ama laga yaabay qaar inaan macallin usoo noqday ama qaar maaragtay laga yaabay meel aan macallinka ahayn ayagana wax ka baranayeen laakiin ninkan runtii aqoonyahan waayo waa nin fekeraya waxaanan hubaa aan jeclahay ilaa agtiisna ka rajaynayaa inkastoo dagaal badan ku socdo aan ogahay waayo magaaladii waa dhex joogaa anigu macallimiinta magaalada deganaan ka mid ahay ee wax ka dhigta alaankan wax ka dhigta wuu doonayaa inuu barbaarintii soo celiyo laakiin waxbaa hortaagan yaa hortaagan gumaysi u shaqeeya ayaa hortaagan barbaarinta maxaa micnaheeda ma garanaya ubadkan yaryarka ah dowladdii xanaaneyn lahayd wasaaradda waxbarashada ayay hoos imaani waa waxbarashadii budget kuma hayna in la yidhaahdo waxyaalo badana lagu xujayna oo ubadkan yararka ee gidaarada ku cabaya xabagta ku cabaya beri wuu kori wuu weynaani maxaad ka sugaysaa beri markuu weynaado wanaag laga sugi maayo ogow waa nin xabag derbigaa ku koray kii arkaa garaacayay ee weynaaday nin weyn noqday wanaagha ka sugin maxaa magaaladii ku kordhay dalkii maxaa ku kordhay kuwa xumo wadaa ku kordhay marka xumihii iminka intuu yaryahay waagii hore waa la qaban jiro waa la xanaaneyn jiro college baa loo furi jiro hooy lagu dhaqaaleeyo wax lagu bara ayaa loo furi jiray kan kale ee guryaha ka soo toosa ee yimaada dugsiyada waxaa la beri jiray diin jacayl dal jacayl calan jacayl ayaa la beri jiray waxaa la beri jiray xaqa uu dalka ku leeyahay iyo isaga xaqa lagu leeyahay ayaa la beri jiray iminka waa la iska socdaayo in badan aaba garanayna xaqa wadanka uu kugu leeyahay iyo xaqa adiga aad ku leedahay aanba kala garanayna iska socdo lama doonayo waxaas marka way ka go-an tahay kolleyba wasiirkan cusub inuu sameeyo way ka go-an tahay haddii dal waana ka go-an tahay nimanka la shaqeeya ee golaha wasaaradda la yidhaahdana inay garab u noqdaano si dalkan ay ka soo baxaan ummad u hoggaansan shuruucda dalka u dhisan otherwise haddii kale waxa weeyaan nimankaa yararkaa koraaya berito wax ay yaqaanaanna ma jirto
xuquuqda ay leeyihiin iyo waxa lagu leeyahayna kalama oga. Waa nin xabag ku soo dhex koray iyo nin aanba loo sheeginba xataa calanka xataa iminka aana la barin. waxaa arkaysaa calan oo 10 xidig ku dhigan oo cad. calankeena waa hal xidig oo cad oo 5 gees ah. 10 xidig oo 5 gees ah ayaa ku wada dhigan ayaa la sugtay. waayo looma sheegin qaladka isaga ma laha. wasaaraddii warfaafinta iyo hanuunintii ummadda ayaa ka maqan goobta iyadana kaalinteedii aynu u sheegin war calankanaga hal xidig buu leeyahay oo cad oo 5 gees ah ee ma laha 10 xidig kuma dhigan oo cadcada. ninkaa 10ka xidig soo sameeyey waxaa laga yaabaa inuu ujeeddo kale ka wado oo laga yaabaa inuu tijaabo ay ka tahay sidii maxaa la yidhahda waqooyi iyo koonfur laynoo marsiiyey in la marsiin karo oo calankana la bedeli karo. taana way noqon kartaa ogow sahan ah. marka dhalinyaro baraarugu toosa aqoontii ha toosto aqoontii ha baraarugto. take care.